موسى عليه السلام نبي موسى ayaa arkay dhagax dhulka dul yaala oo biyana ka soo baxayaan markaas ilaahay nabi muuse wuxuu maqashiyay xiin dhagaxa ka baxaya xiin guux marka muuse alayhi salaam baa ya rabbi iidan buu Allah hadlay dhagaxii baa laga hadliyay nabi muuse dhagaxii la hadlo ku yiri xaad la ooyaysa bali sheeg biyahan ka socday maxay yihiin markaas ya muuse waxa loo yaa waa ilaahay cabsidiisa نار بان كبقيا ودغح بنص القرآن إلهي بان كو شيغ آيات اني اخرناي وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء دغح دقار با دلدلاعيا ومحي لا دلدلاعيا إلهي عبسيسا لا دلدلاعيا لأن بيا كسو بوداي marka ودغح markaasuu nabi muuse ku yiri waa ma biyahan ka soo baxaya markaasuu waa oohin maxaa loo yeesaa ii sheeg naarta ilaahay baan ka baqayaa buu wuxuu adigu mukallaf matid dhagax baa tahay jiniya isba naarta lagu gurayaaye adigu dhagax baa tahay maxaa la ooyeysaa ya muusa miyanan maqal waquduha an-nas wal hijara in naarta jahannama dhagax iyo dad lagu hurin doono miyanan maqal markaasuu yiri ha de waxa marka la hurinayana naarta dhagaxda yar yar baa lagu guraa buu kuwa yar yar baa lagu guri doona sida xaaba marka la doono in la shido kuwa lagu horeysiya عوسك يا رير مركب الله hadluu man anta adu ayata isheen Musa kalimullah bana Musa kalimullah bana markaasuu yiri xaq ilaaha kalim ka dhigay ilaaha kalim hadalkiisa ku maqashiyan kugu dhaariye ii shafaacad qaado ilaahay iga erga dalab in ilaahay naarta anigu iga badbaadiyo markaasuu nabi Musa ilaahay u bariyay ilaahay ba la soo hadlo ku yiri bishaare naartu waa ka badbaadinay isaga markaas uu sheegay abshir adiga ilaahay naartu waa ka badbaadiyay muddo kadib buu hadana nabi Muuse alayhi salaam dhagaxiyo sidii uu u guuxaya oo biyihiina ka socdaan buu halkii ku soo maray markaas uu la hadlo wuxuu ku yiri waa kii naartii laga badbaadiyay ku shafaacad qaale ku warramay sodiga wali oo intii wadama markaas maalinkii hore oo intaan ooyayay naarta cabsideedan la ooyayay hadda waxaan la ooyayaa buu yiri waa shukran ilaahay mahadnaqiisa la ooyayaa buu keen farxadda marmar qofku lama ooyo ya